السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا soo dhawaada markasta oo meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada waa barnaamijkii tiknoolajiyada macaalada barashada tiknoolajiyada waxaan caawa idiin sidnaa ama aan idiin haynaa sidee haddii telefoonkaaga baterigiisa uu dhacayo sidee baad u xiran kartaa ama aad u bologgaraysan kartaa si telefoonkaaga dabka kuu sii hayo muddo maxaa yeelay waxaa dhacdo in mararka qaar aadan helaynin ama aadan u dhaweyn meel jaajar aad telefoonkaaga ku isticmaasho haddii aad ku sugan tahay xaalad emergency ah ama xaalad degdeg ah rabta telefoonkaaga inuu kuu sii shaqeeyo markii aad ka baxdo si aad u sii dabaysato waxaan ku haynaa inaad xirato bateriga dabka ama dabka telefoonkaaga si dabka haddii telefoonkaaga aad xiranaysana halka uu joogo haddii uu maray 18 hadduu maray 20 halkaas baad ku xiranaysaa makaa dhacay ilaa iyo aad ka baxayso xaaladda emergency-ga ah wuxuu kuu sii haynayaa muddo saacada ah halkaas uu ku bologaraysmi doonaa dabka macnaheedu ay tahay 18 marka uu marayo bateriga kama hoos marayo tusaale haddii uu 20 marayo kama hoos marayo 30 hadduu marayo waxaad leedahay 30 igu xir laakiin sometimes waxaa jirto in uusan levelkaas haddii uu marayo tusaale ahaan 50 hadduu ka hoos maro ama 40 uu ka hoos maro waa ku samayn kartaa blog oo waa xiran kartaa laakiin mar haddii uu marayo 90 iyo 80 maxaa yeelay telefoonkaasi ma awoodayo inuu ku bologaraysmo sababtoo waxaa yeelay dabkiisa ayaaba ah dabkeed wax uga baahnayd oo ku isticmaali kartay laakiin haddii telefoonkaaga dabkiisa uu kala dhacayo ama dabka aad marka uu soo gaaro 20 ama 30 ama 15 marka uu soo gaaro hore ka dhacayo waxaan ku haynaa qaab fudud aad ku xiran karto waxaad tagaysaa meesha contactiga ama dial numberka waxaad riixaysaa xidig 4 gees 0028 4 gees waxaa kuu soo baxayo xidig 4 gees 0228 4 gees ayaad riixaysaa waxaa kuu soo baxay halkaa kuu soo baxay tusaale ahaan battery voltage kuu soo baxay oo ah kaasa voltage-ka batteriga ah 3672 ama isbeddelaya mega voltage-ka ama status-ka ama wuxuu ku soo qabanayaa status ama battery status ku soo qabanaya tusaale ahaan hadda dabka wuxuu marayaa levelkiisa waa 18% waa kaasa 18% way marayaa then after waxaad taabanaysaa meeshan ay ku qoran tahay quiet haddii quiet aad taabato waxaa ku xirmayo dabkaaga ayaa ku xirmayo how to lock kaas quiet start ayaa taabanaysaa idan waxaa ku xirmayo bateriga dabkaaga ku kaydsamaya oo makaa dhacay bateriga mahadsanid si shirkademo